wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa xadhiga ka jaray labada biriish ee waaweyn ee maratoga weyn ee magaalada Burco oo dib u habeyn iyo dayactir lagu sameeyay waxaana hadallo kooban ka soo jeediyay xadhiga jarka labadani biriish maamulka gobolka ka degmada Burco iyo waliba injineerkii dayactirka ku sameeyay biriishyadani iyagoona u mahadnaqay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo fudeydiyay wax ka qabashada biriishyadani aniga oo ka wakiila shirkadda dhismaha fulisay dayactirka biriishyada qaybteedii koowaad waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa madaxda sharafka leh ee ugu horeeyo wasiirku waxa halkan aanu dhagax dhignay oo wasiirku noo dhagax dhigay bishii sagaalaad ee sanadkii hore halkan aynu maanta joogno ee dhisan aad iyo aad bay dawladdu ugu mahadsan tahay wasiirka iyo wasaaraddiisa madaxweynaha iyo madaxtooyadaba waxaanu rajaynaynaa oo insha Allahu tacaala rajaynaynaa in inta naga dhiman oo ay wasaaraddu qorshaheeda haysana oo ay ka mid yihiin labada garab ee uu ka fatahayo tagu in la difaaco iyo meesha biyuhu ku dhacayaan oo dabeedna aynu in badan ka nasanno insha Allahu tacaala labada bridge madaxweynuhu uu amray in mashruuca qaranka ah ee wasiirku wado ee gurmadka ah lagu fuliyo lacag deyna oo baanku sii deyniyo tiibaynu maanta midhaheedii joognaa markiiba uga soo jawaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi si togan uga soo jawaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi iyada oo kharashkii ay ku maaragtay qiimeysay wasaaradda hawlaha guud uu soo bixiyay si dhaqso kharashkaas oo lacag $550 gaadhaysay baaq u dirnay wasaaradda hawlaha guud iyo ilaa madaxweynaha baaq iyagana uu dhalay in si degdega insha Allah tacaala looga soo jawaabo maantana arkaysaan jawaabtii uu madaxweynuhu soo bixiyay hadda koowaadna leh madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo iyadoo aan budget ku jirin oo lacag loo hayn oo wax loo qoondayn marka arintani ay timi amray wasaaradda maaliyadda banka iyo inaanu anagu hawsha qabanno oo dhaqso u qabanno inteeda isu ka xidhay lacagteedana ballan qaaday oo inuu bixiyo sidiina aanu ku hawlgalnay hawshaasina ku qabsoontay marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa injineer Faarax oo ah nin mutadawac sida halkan gudoomiyaha gobolka uu sheegay hawl badan oo gobolkaana qabtay haddadan lafteedana ay ka muuqato labada bridge ba hawlo dheeraad ah oo inta wado bridge kana oo ku baxday labada bridge oo lacag 500 iyo dheeraad kunii ay madaxweynuhu u qoondeeyay kuna baxday sida Faarax sheegay ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.